qaaradda Yurub waxaa ku qulqulaya qaxoonti kumanaan kun gaaraya oo intooda badan ka soo cararay dagaalada Syria. Dalalka Yurub ayaa dhibaato ka haysata maareynta qaxoontiga waxayna ku kala qaybsan yihiin sidii ay u qaybsan lahaayeen qaxoontiga. Dalka ugu badan ee qaxoontiga aqbalaya waa Jarmalka oo sheegay inuu diyaar u yahay inuu qaabilo 800,000 oo qaxoontiya. Haddaba waxaa magaalada Frankfurt ku sugan Cabdinaasir Yaasiin Salaad oo kamid ah Soomaalida degan magaalada Frankfurt. Cabdinaasir waxaad walaal ku soo dhawaataa qubanaha VOA. Waa maasantiin waa ku dhawaa. Su-aasha qof walba isweydiinaya ayaa ah sidee ayuu Jarmalku u qaabili karaa dad intaas leeg? Maxayse tahay macnaha ka dambeeya? Waa maasan tahay dalka Jarmalka horta waa dal baaxad weyn oo ka kooban 16 gobol. Yurubta kalena waxa uu yahay hormuud hadda dhanka dhaqaalaha. waa wadan ku hormaray dhanka warshadaha waayadii hore ama 10 sano ugu dambeeyay dadka qaxootiyada ah aad ay ugu soo badanayeen muhaajiriintu gaar ahaan 5 sano ugu dambeysay dadka inta badanna waxa ku dhiirigeliyay oo qaxootiga aadka u faraha badan inay yimaadaan wadankan wuxuu leeyahay warshado aad u tiro badan oo dadku ay ka shaqeystaan madaxda dalka hogaamiyaasha xisbiyada ayaa dadka ugu baaqay inay maangaliyo siinayaan soona dhaweynayaan waxa sidoo kale sidaynu ognahay Jarmalku waa dal dhaqaalihiisu xoogeysanayo tirada dadkiisuna ay sii yaraanayso waxa la leeyahay wuxuu u baahan yahay dad shaqooyinka qabta arintaasi qayb ka noqon kartaa qaabilaada Jarmalka ee qaxoontiga xilligan muhiimada koowaad ay arintaas siinaysaa hadaf koowaad bay u tahay waayo wadankan wuxuu leeyahay warshado badan dadka ka shaqeeya waa dad ah inta badan sanadihii ugu dambeeyay waxa imaanaya qaxooti aad u tiro badan fursada koowaad oo Jarmalka uu siinayo dadka qaxootiga ama muhaajiriinta ka imaanaya dalalka Afrikada bari iyo dalalka Carabta gaar ahaan Suuriya oo kale waxay tahay in ay ka shaqeystaan gaar ahaan muhiimada uu siinayo dalka Suuriya dadka ka imaanaya oo kale waxa weeye waa dad aqoon leh oo dhisan waxa uu ka faa'iideysanayaa dadkaas dhalinyarada ah sida dadka hadda ka shaqeeya Jarmalka oo gaboobay markay meesha ka baxaan si ay 20 sano soo socdo 30 sano soo socda ay uga qayb qaataan warshadahan sida uga shaqeyn lahaayeen muhiimada koowaad waa taas sidaynu ognahay qaxoontigan hadda ku sugan Jarmalka waxa u badan Siiriyaan marka ma dadka Siiriyaanka ee qaxoontiga la qaabilaya mise cid kasta oo Jarmalka soo gaadha waa la qaabilaya hadda waxa saaran miiska oo adduunka oo dhan ama qaaradda Yurub waa Suuriya laakiin muhaajiriin kale oo qaxootiga waa ay jiraan sida Eritrea oo kale iyo Iraq oo kale iyo Soomaaliya oo kale laakiin hadda qaxootiga ugu badan soo galay Jarmalka oo hadda aan ka hadlayno waa Suuriya kuwa kalena dabcan waa la qaabilaya laakiin hadal haynta ugu weyn iyo waliba dejinta ay kala kulmeen waa dalka Suuriya qaxootiga faraha badan ee ka yimi oo mudana jidka ku soo xanibnaa waan gartay ama hadaynu fiirino dhanka xisbiyada nacab soo galaytiga iyagu fikirkooda ku aadan qaxoontigan la qaabilayo sidee u arkaan marka iyagu xisbiyada hadda ku midoobay talada dalka haya sida SDU SPDU iyo CSU waxay ka yeesheen toddobaadkii hore kulan degdeg ah oo ku saabsan qaxootigan waxayna ay go'aan ku gaareen inay soo dhaweeyaan oo dibadejin loo sameeyo wiigii hore ama toddobaadkii hore sabtidii iyo axadii oo kaliya 22,000 ayaa soo galay dalka Jarmalka oo Suuriyaan u badan magaalooyinka München iyo Frankfurt marka xisbiyada iyo dadka diimaha aad ay u soo dhaweynayaan taasaana fududeysay in dadku qaxootiga ay ku soo dhiiradaan dalka Jarmalka ugu dambeyn Soomaalida ka waran iyagu Soomaalidu ma ku jiraan dadka la qaabilaya ee Jarmalka soo gaaray Soomaalida aad ay u yar yihiin hadda 2013 ilaa 2014 ay aad u badnaayeen laakiin sanadka 2015 waa yar yihiin Soomaaliya waa og yihiin qaxooti yihiin waana la qaabilayay inkastoo uusan Jarmalku sida dalalka Scandinavianka oo kale uusan qaxootiga waayadii hore uusan aqoon laakiin Soomaalidu waa qayb kamid ah dadka la qaabilayo oo qaxootiga oo ku sugan dalka Jarmalka sidoo kale waxa jira dad cunsuriyiin ah oo bariga u badan oo dadka qaxootigu ay ka cabtaan laakiin dadkaasi wax badan ma sameyn karaan oo waxa ka awood badan dadka kale oo soo dhaweynaya qaxootiga oo waxa moodaa hadda dadka Jarmalka iyo hogaamiyaasha xisbiyadu inay ka siman yihiin badankoodu isdhexgalka bulshada iyo muhaajiriinta
aad ayuu u mahadsan yahay. kaasina wuxuu ahaa Cabdinaasir Yaasiin Salaad oo ka mid ah Soomaalida degan Jarmalka oo ku nool magaalada Frankfurt oo khadka Skype-ka noogu waramayay.